السلام عليكم صحبتي دغالي قاعد بني سلامي دمانتين مeel kasta joogtaan waa walaashiin caawa waxaan noo hayaa hablaha u khaasa hablaha weeyaan waxaanu ka hadli doonaa insha Allah qurxinta dumarka xaalado badan oo hablaha ku yimaada maasha Allah ku soo dhawaada hablo insha Allah waxaanu ka hadlaynaa insha Allah dildilaaca ma garanaysaa jirka ku yimaada dhalmada kadib iyo qofku markuu naaxo kale ama uu dhubnaado kale oo aad u naaxo ama hilibku ka baxo kale waxa ku yimaada dildilaac marka dildilaacaas ku bilaabma marka hore xididada yar ama ma garanaysaa xididada madmadow sawirka oo aragtaan oo kale ama marka dambana noqdo liid yar cad marka insha Allah sidii lagu baabiinayaan ka sheekayn doonaa hadii dhibtaas ku haysato insha Allah nala soo wadaag waa kaas la soco saxaabta qaaliga waxaan u baahanaa dhan insha Allah halkan ka sheegi doonaa waxaan u baahanahay saliid avocado saliid avocado saan wada ognahay waxa leedahay fiitamiino badan skinka uu fiican yahay jirka qalalay oo kale talabaad waxaan uu jirkuba u dildilaacayaa Soomaha waxa weeyaan fiitamiino tabaya jirka qalalay markuu qalalo ama uu tankiisi dhaafo oo kale baruurtiisa yaada noqoto oo jirkiisa rab qaadi waayo ayaa u dilaaca keenaya marka saliidan aad bay u fiitamiin badan tahay wana culus tahay waxana u fiican tahay skinka sida avocado kale markaad wajiga marsato kale waad iska dareemaysaa ama aad cabto wax yar kadib uu ka soo baxaya saad kale wada ogtihiinba marka saliida avocado waa muhiim ayuu tahay arinkan waliba waxaad sameynaysaa insha Allah waxaad kale ku dareysaa waan ku soo qorayaa insha Allah waxaan kala rabaa inaan xasuusiyo insha Allah uma baahnid inaad mariso isagoo buda ama maaragtay isagoo caadiyo qoyan muhiimadiisu waa saliidiisa u baahanahay saliidiisa inaan isticmaalo waliba xaaladan saliida u muhiim ah waa in saliid aad isticmaashaa sida marka wajiga la marsanayo ama cabitaankiisa haddaad rabto inuu effect dambe ku siiyo oo aad ka aragtay jirkaaga wad ka arkaysaa taas oo dhalaalka waad arkaysaa laakiin marka dildilaacan ka hadlayno waxaan u baahanahay waa saliidu marka waxay ka caawinaysaa insha Allah jirkan qarqarxay inay isku soo ururiso oo maaragtay isu keento waanad u samraysaa kulli muddo qaadanaysaa message note ku sameynaysaa mar walbood marinaysid waxaanad ka ilaalinaysaa in mar dambe meeshii aad qarxa ku aragtay in ay noqoto ma garanaysaa qalayl sida ma aragtay kareemyada fiican dufanka loo kala isticmaali kartaa sida ma garanaysaa kareemka waa la caaya laakiin uu fiican yahay maxaa la dhahay geer saliimka aad buu ugu fiican yahay ma garateen hablo marka waxaad tijaabin doontaan insha Allah saliid avocado waa muhiim marka ila tijaabiya insha Allah bidnillaahi kariim comment kana igu soo qora marka tijaabisaan bil kadib hadii aad natiijo ka aragtaan iyo hadii kalaba habla mid kan laan is xasuusiyay imkada waxa lagu jiraa waqtigii corona marka waqti badan bad u helaysaan guriga fadhiga iyo ma garanaysaa isku mashquulka iyo marka laga faa'iideyso fursadda insha Allah hana jirka hala dhaqaaleeyo ma ahan wajiga ilaalino ama aragtay fiitamiin waxaan marmarino waa in jirkana sidoo kale waa jirkuna waa meel naga qayb naga mida ma fahanteen hadii aynu ka fikirno may wajiga ma soconayso marka inaan dhan walba xooga saarna insha Allah oo inagu ma garanaysaa aan iswaanino mid waliba mid kale waxay ku dhaanto ay tiraahdo anigu waxaan garanayaa waxaan baan barayaa marka soo wadaaga insha Allah noo soo sheegay idinku waxaan ugu dhaantaan oo aad ku fiican tihiin ama garanaysaa ama khibrad u leedihiin haddana insha Allah waxaan soo sheegi doonaa waxa kale lagu darayo ugu muhiimsan waxa weyn dacartu waa waxa qudhaata ee jirka qurxiya waa waxa qudhaata skinka isku celceliya daldaloolka ama dildilaaca hadii aad joogtayso mar walba aad mariso oo muddo cayiman aad waqti ku siisay insha Allah waad ka arkaysaa natiijada marka habla fadhiga laga kaco wayna dadaalna insha Allah waynagu suroonaano hadinayso isuroonaniya inoo roonaanaya cid kale nooma roonaanayso marka quruxda la ilaaliyo insha Allah waa gacan ku hays dumar hore loo yiri waa gacan ku hays sama habla
ballanteen waa gacan ku hays hablo aad baan idin salaamay dhammaantiin meel kastoo joogtaan waa walaashin insha allah aad idinkuna sidoo kale soo taageera wayna ka insha allah kulanti dambe xiiso leh hablo ballanteen insha allah waa maxay gacan isku hayn insha allah dhammaantiin meel kastoo joogtaan hablo aad baan idin salaamayaa salaan qalbiga ka soo go'day waxaan leeyahay insha allah nala soo wadaaga waxaan nagu dhaantaan la wadaag walaasha insha allah wax walba taqaano oo ama comment noogu soo gudbiya ama maaragtay cod ama ma garanaysaa saad jeceshahay muhiimada laakiin waa inaan wax ka barano mas'uuliyadaada weeyaan anagana sidoo kale insha allah waad naga baranaysaa wixii aan naqaanaba insha allah biidnillaahi kariim dhammaantiin meel kastoo joogtaan aad baan idin jecelahay walaalahayga qaaliga farxadiigu waara aad baan idin